degmada Wanlaweyn waxaa maalmihii ugu dambeeyay kor u kac ballaaran ku yimid qiimaha la kala siisto ariga noocyadiisa kala duwan. Halkan aanu joogno waa suuqa xoolaha, gaar ahaan suuqa lagu kala iibsado ariga noocyadiisa kala duwan. Halkani waa madal ay isagu yimaadeen ganacsatada ka kala yimid gobolada iyo sidoo kale tuulooyinka fogfog. waxaana jirto maalmo uu suuqa aad u camiran yahay sida maalinta Axadda, Talaadada iyo maalinta Khamiista. halka maalmaha kalena ay dadku ku kala mashquulsan yihiin safarada ay iyagu markaasi wax ku soo iibsanayaan. Oday Magadoome waxa uu in badan ku dhex jiray suuqan ariga, waxa uu ka warbixinaya isla markaasna ka sheekeynaya xaaladda suuqan iyo siday wax u dhacayaan. magay waxa waaye Abuukar Maxamed Ali oo linka Saw Magadoome qiimisho neefka bariimida 2 milyan iyo 2 milyan iyo 200 arbaata afgooya suuq liin safare sabtiga afgooya liin safare asniinta wayni safare tortoro iyo nay buur iyo liin safare hool un doonaan ilaa buur aan doonadaan ilaa buur hakaba buur helada buur hakaba tortoro leego yasku gadaan. marka la gaaro xilliyada Carafada iyo munaasabadooyinka kale, suuqan ayaa wuxuu noqonayaa suuqa ugu mashquulka badan sababtoo ah waxa loogu yimaadaa meelooyin fogfog sida Afgooye, Buur, Muqdisho iyo sidoo kale Baydhabo. xoolaha qiimahooda ayaa cirka galaya, sidaas darteed waa kan mid ka mid ah ganacsatada oo si kooban u sharaxaya qiimaha maanta. suuq mayb waa erinka bariimida 2 milyan iyo 2 milyan iyo 100 shilgadoo haaye erinka beek hoosas kontumaarnig ana tumiko tumilama urgud gaagaabka ana 800 idahan bariimida 2 milyan iyo 2 milyan kii inka qiimo badan oo bariimida 2 milyan iyo 700 dhibaato oo qabno majin alxamdulillah amar waaqaysan. tani waxay muujinaysaa in qiimaha aanu ahayn sidii hore, maadaama neefka hadda la gadayo 2 milyan la gadi jiray 3 milyan maalmo ka hor. Cabdiqani Maxamed Xasan, warbaahinta Koonfur Galbeed, Wanlaweyn.